xafladda daahfurka maalgelinta barnaamijka xalka waara ee barakacayaasha degmada Baydhabo ayaa waxaa si wada jir ah u daahfuray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdullaahi Xaaji Xasan agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda Soomaaliya agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha Puntland maamulka degmada Baydhabo iyo mas'uuliyiin kale daahfurka barnaamijkan waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaasha hay'adaha qaxootiga iyo barakacayaasha Koonfur Galbeed iyo Puntland agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Puntland dowladda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha degmada Baydhabo ururada dhalinyarada degmo iyo gobol ugu horeyntii waxaa barnaamijka daahfurkiisa ka hadlay gudoomiyaha degmada Baydhabo Axmed Duqa magaalada Cabdullaahi Cali Watiin iyo gudoomiyaasha hay'adaha qaxootiga iyo barakacayaasha Puntland iyo Koonfur Galbeed barnaamijka kontarness kooy samay boo hore baan sheegay ama ajandaha may booha inqiyaal may booha in oo financing lagu soo biyo la maalgeliyo arrimaha halka waara ilaa may booheer may booha dowladda hoose la maalgeliyo taasoo marka hay'adda UNCDF iyo wasaaradda may booha arrimaha gudaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya may booyo iskaaladahay siisin waqtin barnaamijka may booha waqti dheer may boohayaha ka soo magaalada Baydhabo sanadka markuu ahaa 1994 xilligii dagaalka sokeeyay Soomaaliya ka socdeen baa Puntland waxa soo galay number fara badan oo barakacayaal ah dadkaas ku ugu horeeyay waxay soo galeen 1994 waxayna ka yimaadeen 80% koonfurta Soomaaliya markii halkaas ay tageen dadka deegaanka si fiican ayaa loo soo dhaweeyay kadib waxa la aasaasay Puntland 98 wixii markaa ka dambeeyay dadkan maxaa loo qaban karaa baa la yiri wasaaradda arrimaha gudaha oo hawshaas gacanta ku haysay waxay sameysay barnaamijyo badan barnaamijka ugu horeeyo la sameeyay muxuu ahaa waxa la sameeyay horta in la helo siyaasad dadkan barakacayaasha iyo hay'adaha dawladda maxaa kala hagaya meerka sheegay waa $500,000 572 qoys kam ayaa jiro waxaana gacanta ku hayo hay'adaha ku bahoobay loo yaqaan camp management camp coordination CCM cluster oo sub cluster CCM maanta waxay fadhiyaan xafiiskeena waxay rabaan in ay sameeyaan exercise-kii kale lagu verify gareynay tiradii gaabka ahayd u dhaxay muddadii ay jirtay covid-ka oo aan waxba qabsoomin inay sameeyaan tirakoobkii kale ee lagu xaqiijinayay inta muddadaasi inta hadda u dhaxaysay wixii soo kordhay agaasimayaasha wasaaradaha arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedka Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa dhankooda goobta ka sheegay programkan waa laga sheekeeyay daahfurkiisaan isugu nimid mashruucina ka dhaxeeya Soomaali oo dhan maadaama wasaaradda federaalka oo muxuu ahaa Soomaaliyeedna ay joogto dalal kale oo gobolka regional way programkan oo ay kamid yihiin maaragtay East Africa dalalka waliba inay ka xoogan xagga maaragtay maamulka iyo dhaqaalahaba oo Uganda iyo Kenya iyo Ethiopia iyo ay kamid yihiin ayaan kula jirnaa competition oo tartan ah laba magaalo IDBs-ka lagu horumarinayo ayagoo la siinayo dhaqaale ay small business ku furtaan mashruucaas waa mashruuc tartan ku jiro haddii aan dowladda Soomaaliya waxaan tartan kula jirnaa oo si islaamidan u bilaaban doono Uganda iyo Soomaaliya mashruucu siisin araga haytan geeka dahga la qaado doona dahgaas gidaalisa ka jira mashruuca wal daahfuro doona insha Allah siin sifeeleen araga doonta mashruucaas intii waliba waahe way badimeystiran nagadu doone dadaalada oo maayar ka sheegay iyo taageerooyinka iska jira dhinaca halka waar walbada ma socday juhdi badan la bi waa mashruuc way ku mid ah halka waar mashaariicda oo isdhaxgalaya ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdullaahi Xaaji Xasan oo barnaamijkan daahfurayay ayaa u sheegay bulshada deegaanada Koonfur Galbeed in ay ka faa'iideystaan mashruucan ee xalka waara kaasi oo qayb lixaad leh ka qaadanaya qaxootiga iyo barakacayaasha أنا ما تلفظي حلقة ولا نقوى هذا فضي
weydiinan security iyo nabadgelyo la kala faday tan kale may faday waliba gaar ahaan commissionerka iyo hay-ado ku lug leh IDPs-ka may jiraan language barrier oo problem ah oo luqadda ka saabsan laftiya baraka horta afkaana ma ah luqadaana ma ah kuwada afka Soomaaliya waa laakiin luqadaana ma ah maxamed aadan socdaal TV-ga iyo raadiyaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed